بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعان wanaagsan idil ahaantiin badawadayaal ku soo dhawaada wararkeena qodobada ku maqli daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada dalkaasi Eritrea ayaa lagu arkay gudaha deegaanka Amxaarada si ay u badbaadiyaan ama uga badbaadiyaan baa la yiri kooxaha TPLF ee ku sii siqaya deegaamo horle dawladda Itoobiya ayaa shaacisay in ay isticmaali doonto dhammaan awoodda ciidamadeeda guud ahaan ciidanka Itoobiya ayaana la sheegay inay ka qayb gali doonaan howlgalka haatan bilaaban doona TPLF oo ka jawaabtay hadalkii shalay ka soo yeedhay deegaankaasi Amxaarada ee ahaa in maanta oo Sabti ah ay bilaabayaan howlgal lagu sifeynayo kooxaha Tigreega waxa uu Getachew Reda uu sheegay in ay gamca furan ku soo dhaweynayaan cid kasta oo wax iska celinaysa intaasi waa qodobadan idin hayna daawadayaal iyo saaxiibayaal kuwa ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilownay deegaano ka tirsan gobolkaasi Amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa lagu arkay ciidamada dalka Eritrea oo u soo tallaabay dhanka iyo deegaanka Amxaarada maleeshiyada Amxaarada iyo ciidanka Itoobiya ayaa sawirro ku soo galay gudaha deegaanka Amxaarada waxaana la sheegay in ciidamada Eritrea ay u soo galeen gudaha deegaankaasi si ay u badbaadiyaan baa la yiri magaalooyinka ay kooxda TPLF ku sii jeedo ama ay ku sii siqayso inta aysan qabsanin iyadoo ay xusid mudan tahay in inta badan gobolka Wollo uu ka baxay gacanta dawladda iyo xulufadooda maamulka Amxaarada ayaa maalinnimadii shalay ahayd shaaciyay inay qaadayaan gulufkii ugu dambeeyay oo maanta oo Sabti ah kaasi oo ay sheegeen inay ku ciribtirayaan kooxaha TPLF-ta ama ay ugu yeedheen sidoo kale argagixisada TPLF-ta oo ka jawaabaysay ayaa waxay sheegeen inay gamca furan ku soo dhaweynayaan Amxaarada iyo cid kasta oo wax iska celinaysa afayeenka oo ka jawaabay hadalkii hoggaanka nabadgelyada ee deegaankaasi Amxaarada ayaa waxa uu yiri gamca furan ayaan ku soo dhaweynaynaa waxa kale oo uu sheegay in dagaalka ay wadayaan inta uu jiro qof xabad ku soo ridaya xataa haddii ay qabsadaan buu yiri magaalada Addis Ababa shacabka ayuu ugu baaqay inay isdejiyaan wax dhibana uusan soo gaari doonin dagaalkana ay kula jiraan waa sida uu hadalka u dhigay afayeenka kooxdaasi TPLF-ta ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed iyo ayda uu ku adeeganayo dhanka kalena dawladda Itoobiya ayaa dhankeeda maanta ku dhawaaqday inay isticmaali doonto awood kasta oo ay heli karto si TPLF-ta meesha looga saaro loona hor istaago horumarka ay furimaha hore ee dagaalka ay ka sameynayaan dhammaan ciidamada Itoobiya xitaa kuwa howlgabka ah ayaa la sheegay in gulufkani ugu dambeeyay ay ka qayb qaadan doonaan dawladda federaalka ee dalka Itoobiya ayaa ka digtay suurtagalnimada in awoodeeda difaaca oo dhan ay kaga hortagi doonto fallaagada ka dagaalamaysa gobolkaasi waqooyiga ee dalkaasi Itoobiya kadib markii dagaalyahanada mucaaradka ay dhawaan horumar ka sameeyeen sida ay warbaahintu soo tabinaysay dagaalka ay kula jiraan ciidamada dawladda ee dalkaasi Itoobiya iyo sidoo kale xulufada ay kaashanayso dagaalyahanada TPLF waxay khamiistii la wareegeen gacan ku haynta magaalada Lalabela oo ah magaalo ay hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ay u aqoonsan tahay inay tahay magaalo qadiimiya magaaladani ayaa waxa ay ku taallaa gobolka Amxaarada oo deris la gobolkaasi Tigreega dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in lagu qasbayo inay abaabusho oo ay gobolka Tigreega u daadgurayso dhammaan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Itoobiya dagaalada ayaa sii xoogaysanayay tan iyo bishii Juun markaasi oo jabhadda TPLF-ta iyo sidoo kale xulufadeedu ay dib u qabsadeen inta badan deegaanada gobolkaasi Tigreega oo ay ku jirta caasimadda magaalada Maqale ciidamada xukuumadda Itoobiya ayaa ka baxay gobolkaasi waxayna dawladdu ku dhawaaqday xabajoojin hal dhinac oo ay sheegtay inay uga gol lahayd in mid bini'aadanimo ama gargaar bini'aadanimo lagu gaarsiiyo gobolkaasi si kastaba ha ahaatee wadooyinkii gargaarka ee laga tagi jiray Tigreega ayaa la xanibay mas'uuliyiintuna waxay abaabuleen dagaalyahano iyadoo dadka dalka oo dhan lagu dhiirigelinayo inay isqoraan oo ay ku biiraan ciidamada dawladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya jabhadda TPLF waxay doonayaan
in wadahadal lagu joojinayo dagaalka la galo, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in ficiladoodu ay yihiin kuwa khayru mas-uulnimo. TPLF waxay tijaabinaysaa dulqaadka dowladda federaalka, waxayna ku riixaysaa inay bedesho go-aankeedii xabad joojinta bini-aadanimada ee halka dhinacaha ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda federaalka ee dalka Itoobiya habeennimadii xalay ahayd. dhanka kalena isuduwaha gargaarka degdega ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xabad joojinta bini-aadanimada ee Itoobiya ay tahay lama huraan si loo ogolaado buu yidhi in gargaar la gaarsiiyo gobolkaasi Tigreega ee ay dagaaladu halakeeyeen, islamarkaasina muddooyinka badan ay isku kor dagaalamayeen labada dhinac ee TPLF iyo dowladda dhexe. 8 bilood ayaa laga joogaa markii uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay in la soo afjaray dagaalkii Tigreega kadib markii ciidamada federaalku ay la wareegeen caasimadda gobolkaasi ee magaalada Maqale 28 bishii November 2020. 7 bilood kadibna dowladdu waxay badbaadinaysaa wejigeeda iyada oo sheeganaysa in 29 Juun ay xabad joojin la gaadhay Tigreega si wadada loogu xaadho in la sameeyo gargaar bini-aadanimo, maadaama dad fara badan oo Tigreeg ay aad ugu baahan yihiin. hal maalin kadibna jenaraal ka tirsan militariga ayaa laga soo xigtay isagoo sheegaya in Maqale ay noqotay meel aan tabar loo heli karin. hase yeeshee xabad joojintii waxaa la shaaciyay hal maalin kadib markii warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa dibadduba ay xaqiijiyeen in xoogaga fallaagadu ay dib u qabsadeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolkaasi Tigreega. markii fallaagadu guulaha gaareen, waxaa bilowday in gobolada kale ee Itoobiya ay ciidamo u diraan jiida hore ee dagaalka si ay uga barbar dagaalamaan militariga federaalka dalka Itoobiya oo la sheegay in looga adkaaday dagaaladii furimaha hore. kumanaan dhalinyaro ah oo iskood isu xilqaamay ayaa tegay xeryaha tababarka ee militariga ee dowladda kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ka codsaday shacabka inay garab siiyaan militariga qaranka Itoobiya oo tabar darro badan soo wajahday kadib dagaal adag oo ay galeen. barasaabka gobolka Amxaarada Agagen Tashaga ayaa qudhiisu dhalinyarada gobolkaasi ka dalbaday inay militariga ka caawiyaan dagaalka ay kula jiraan fallaagada. guud ahaanba intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkeena kooban oo aynu ku eegaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya. waa guuleed alifle iyo bahda Warner Media oo idinkaga sii tagaya. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.